waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan teendhada afisyoone ka socda doorashada xubnaha xildhibaanada aqalka sare ee ku matali doona gobolada waqooyi ama Somaliland 6 kursi ayaa maanta doorashadooda ka socota howlka afisyoone waxaana mid ka mid ah doorashadaasi cod gacantaaga ku soo baxay Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyihii hore ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu u tanaasulay musharaxii kursiga kula tartamaya kaasi oo lagu magacaabo Saciid Cumar Xuseen doorashada 60 kursi ee ka tirsan kuraasta aqalka sare ee Somaliland 3 kursi ayaa tartankooda aad u adag yahay kaasi oo haatan mid ka mid ah ay ku tartamayeen wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac iyo gudoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka Ibrahim Idle Suleyman waxaana ku soo baxay kursigani wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac kuraasta kale ee aad ku adag waxaa ka mid ah kursiga uu ku tartamayaan wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube iyo Cabdiraxiin Maxamed Xasan hadda waxaa socota doorashada kursiga ay ku tartamayaan Professor Maxamed Maxamuud Allabari Professor Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Cabdiraxmaan Cismaan Cali ammaanka xirada afisyoone oo ay ka dhacayso doorashada ayaa aad loo adkeeyay waxaana ku sugan ciidamada booliiska Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo loo xil saaray arrimaha doorashooyinka biri ayaana lagu wadaa in 5 kursi ee hartay iyagana sidan oo kale loo doorto Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa waxay bilaabeen inay iska difaacaan weerarada uga imaanaya burcadda u dhalatay dalkaas Sharma Arka Nuur UK ayaa inoo soo waramay xaalad aad u kacsan ayaa ka taagan gobolka dhaca dhanka xuduudda dalkan Koonfur Afrika la wada dalkan Zimbabwe kadib markii halkaasi isku rafadiyaan koox burcad South African iyo Soomaali doonaysa inay hantidooda difaacdaan arrintan ayaa timid kadib markii koox burcad South African ay weerar ku qaadeen magaalada Tanzania ee gobolka Limpopo halkaas oo Soomaali fara badan ku dhaqan yihiin iyagoo halkaasi ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Jira Axmed kaasoo deegaanka Tanzania aad looga yaqiinay sidoo kale kooxaasi burcadda isla goobtaasi ku dilay gabar kale oo South African taasoo u shaqeynaysay marxuumka la dilay wararka waxay intaasi ku darayaan in kooxaasi burcadda ay ka baqeen in gabadhaasi farmuuqdo sidaas inay ku toogteen deegaanka Tanzania ee deegaanada kale hoos yimaada iminka waxaa ka taagan xabsi aad u weyn Soomaalida ku dhaqan halkaasi ay waxa soo wajahday xaalad hubanti la'aan sarkaal ka tirsan booliska magaalada Tanzania oo la hadlay ka gaabsaday inuu wax tafaasiil ka baxsho isagoona ii sheegay in ay wali wadaan baaritaano booliska dalkan Koonfur Afrika ay inta badan aad uga gaabiya wax ka qabashada dilalka dhaca lagula kaco dadka ajaanibta ee Soomaalida u badan tahay ilaa iminka ma jirto wax kays ah loo gudbiyay booliska oo wax ka qabteen Sharma Arka Nuur UK Kenen South Africa aad baad u mahadsantahay UK mid ka mid ah suldaanada Somaliland ayaa lagu soo waramayaa in uu dhaawac u geystay xildhibaan ka tirsan Somaliland Ilyas Cabdi Cali ayaa warkan Hargeysa ka soo diray xildhibaan Axmed Guruuje oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta dhaawac loogu geystay magaalada Hargeysa xildhibaanka oo dhaawacu ka soo gaaray madaxa ayaa waxa ku dhuftay bud Suldaan Saleebaan oo ay isku beel yihiin suldaanka iyo xildhibaanka ayaa maalmihii u dambeeyay warbaahinta hadallo isku marinayay kuwaasi oo midna dawladda ku durayo halka suldaankuna uu dawladda difaacayo gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland ayaa ka hadlay arrinta xildhibaankaasi saaka lagu dhaawacay magaalada Hargeysa isagoo ciidamada booliiska iyo dawladda ugu baaqayn si degdeg ah loo soo qabto xildhibaanka suldaanka dhaawaca u geystay joogna golihii saaka waxaan u tii ugu yeeray saxaafadda dhacdo ka dhacday saaka magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Somaliland oo lagu farasaaray xildhibaan qaran oo xasaanad leh xildhibaan Axmed Guruuje waxaan markaynu ku yeeray dhaawac qaba gacanka hadal ku dhacay sida sharciga waddanka ku sayaan haddii gacanka hadal dhaco dambi baa dhacay intaa waa iman xasaanada mar haddii gacanka hadal dhaco oo qof wax yeelo sharciga wuxuu qabaa in qofka wax dilay wax geysta sharciga loo keeno waxaa intaa dheer xildhibaanku waa xildhibaan qaran xasaanad buu leeyahay dambiga dhacayna maaha dambi qof laga galay oo dambi golaha laga galay wadalkan dareenkii xildhibaanadoo dhan way joogaan aad baan marka koowaad arrintaa u cambaareynaa loo xunahay xildhibaanadii qaranka ee la soo doortay ee dalka iyo qaranka u ahayd inay sharciga u sameeyaan gacan la saaro aad baan uga xunahay waana runtii arrin aanu cambaarayn oo ka xunahay marlabaadka
waxaan rabnaa in la soo taago ka codsan hadii kulli ixtiraam leh oo degdeg in loo soo taago ninkii oday ahaa ee gacantaa geystay in la soo xidho sharciga la hor keeno si wasaaradda arrimaha gudaha taliyaha booliiska saraakiisha amniga waxaan rabnaa arrintaas oo runtii aad aragtaan dareenka xildhibaanada dareenkaygu dhammaantayo kashkuudanahan ka xildhibaan ahaanba aanu aad uga xunnahay oo hadday taasi dhacdo aanay noqon karin xildhibaanada qaranku deen shaqada qaranku ay guteen iyadoo dowladdu tahay booli qura oo isku mid ah oo laba kala duwan ah oo sharci dejin iyo fulintii aad baan uga xunnahay waan cambaarayna waxaana sirka arrimaha gudaha iyo cidda khusaysa amniga ka rabnaa uga fadhinaa inay sharciga hor keenaan ciddii dambiga geysatay aad iyo aad baa umahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrinta suldaanka dhaawaca u geystay xildhibaanka ayaa Somaliland dadkeedu aad u hadal hayaan iyadoo ay tahay arrin ugub ku ah deegaanada Somaliland Ilyas Cabdi Cali Radio Kulmiye Hargeysa askar ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa lagu dilay duleedka degmada Caabud Waaqi gobolka Galgaduud Xasan Axmed Maxamed ayaa inoo soo waramay qasaare isku jira dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay warar jidgal ah oo lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ka soo mabaxay magaalada Galgaduud isla markaasna ku sii jeeday caasimadda Galmudug ee Samareeb weerarkan ayaa ka dhacay aagga deegaanka Dhudub la yiraahdo oo hoostaga magaalada Caabud Waaq halkaas oo safar ay ku ahayeen ciidamada ka tirsan booliiska dawladda federaalka weerarkan ayaa la sheegay in ka dambeeyeen koox maleeshiya beeleed oo ka soo jeeda magaalada Galsoor ee gobolka Galgaduud inta la xaqiijiyay 3 askari ayaa ku dhimatay waxaana dhaawac ka soo gaaray 2 kale kuwaas oo dhamaantood ahaa ciidamo booliis oo ka tirsan dawladda federaalka isla markaasna ku sii jeeday magaalada xarunta oo Galmudug ee Samareeb weerarkan dhaliyay qasaaraha isku jira dhimashadii dhaawac ee loo geystay askarta ka mid ah ciidamada booliiska dawladda federaalka waxa ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanada Qoryacaad iyo Dhudub oo dhamaantood ah deegaan hoos yimaada magaalada Caabud Waaq ee waqooyi gobolka Galgaduud kooxdii ka dambeysay dilkaasi ayaa la sheegay in ka baxsan goobta waxaana halka falka ka dhaca gaaray ciidamo ka tirsan kuwa booliiska dawladda federaalka ciidamada halkaasi gaaray ayaa hawlgallo ballaaran wada waxaana baadgoob ugu jireen sida gacanta ugu soo dhagi lahaayeen dadka ka dambeeyay dilka askarta ka mid ah ciidamada booliiska Soomaaliya loo geystay deegaanada ka tirsan gobolka Galgaduud dilkan loo geystay ciidamada ka mid ah booliiska dawladda federaalka isla markaasna ka dhaca deegaanada ka tirsan Galgaduud ayaa la sheegayaa inuu yahay mid sal ku haya aanooyin qabiil taas oo maamul la soo dhaafay ka tagneed deegaano badan oo ka tirsan Galmudug Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmiye Cadaad ciidamada ilaalada xeebaha Sri Lanka ayaa waxay soo badbaadiyeen kalluumaysato Soomaali ah kadib markii doonidii ay wateen kula qalibantay badda dhexdeeda Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa warkan soo koobay afar kalluumaysato Soomaali ah oo ku go'doonsanaa badda Sri Lanka ayaa la soo badbaadiyay sida sheegeen ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi laba kamid ah kalluumaysatadaasi ayaa la geeyay dekedda kalluumaysiga ee Burwala koox kalluumaysato u dhashay Sri Lanka oo u kalluumaysi tagay dekedda Burwala ayaa helay raggan Soomaalida oo ku go'doomay mool dheer oo ku yaala badda kalluumaysatadaasi ayaa Soomaalidan ku soo qaaday doomihii ay wateen oo laba ahaa waxaana labada ragga la geeyay dekedda Burwala labada nin ee Soomaalida ayaa ciidamada ilaalada xeebaha Sri Lanka da'doodu ku sheegeen in ay yihiin 25 jir iyo 30 jir ciidamada ilaalada xeebaha Sri Lanka ayaa sheegay doonida sidee raggan kalluumaysatada iyo kuwa soo badbaadiyay ay muddo badda ku soo jirtay dhinaca kale ciidamada ilaalada xeebaha Sri Lanka ayaa sheegay in labada kale ee kalluumaysatada Soomaalida maalmaha soo socda la geyn doono dekedda Burwala waxaana ay sheegeen in kalluumaysatada Soomaalida ay ku jireen hawlo kalluumaysi isla markaana ay ka luntay jihadii ay ku socdeen sabab la xiriirta badda oo kacsanayd kalluumaysato badan oo Soomaali ah ayaa lagu waayay badda iyadoo qaarkood lagu waayay nolol iyo geeri colaad beeleed muddo ka taagneed degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag ayaa waxaa laga gaaray xal Ilyas Cabdi Cali ayaa mar kale inoo soo waramay nabadayn maalmihii u dambeysay ka socotay deegaanka Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag ayaa maanta la soo gabagabeeyay salaadiinta deegaanadaasi beelaha ku dirirayay 3 sano ee u dambeeyay taliyaasha ciidamada booliiska maayirka degmada Ceel Afweyne iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa sheegay in nabadayntaasi ay ku soo dhamaatay si degan isla markaana dadkii halkaasi ku dirirayay ay nabad dhex dhigeen deegaanada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag ayaa sanadihii u dambeeyay waxa halkaasi dagaalo ay ku dhex marayeen laba beelood oo degan iyadoo dilkii ugu dambeeyay dagaaladaasi la xiriirana uu ka dhacay degmada Garadag beelaha halkaasi ku degan ayaa kala dilay dad gaaraya 300 kuwaasi oo isku leeynayay deegaano iyo ceelbiyood
dadka deegaanadan ayaa xukuumadda Somaliland waxa ay ugu baaqday marar kala duwan in ay nabadda ku soo dabaalaan iyadoo salaadiinta culimada iyo suugaanyahanada Somaliland ay sidii nabad deegaanadaasi uga dhalin lahaayeen muddooyin badan u joogay halkaasi. Ceelaf Weyn oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxaa ciidamada militariga Somaliland iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee RRU ay halkaasi u joogeen muddo 4 sano nabadeynta maanta laga sameeyay deegaanada Ceelaf Weyn ayaa waxaa soo dhaweeyay shacabka ku nool deegaanadaasi kuwaasi oo sheegay inay ka raysan doonaan bando ay dawladdu ku soo rogtay dadkuna ay isdhexgeli doonaan. iskuulada iyo goobaha waxbarashada iyo magaalada oo lagu kala guuray ayaa ay keentay dagaalada Ceelaf Weyn ku dhaxmarayay labadaasi beelood. Ilyas Cabdi Radio Kulmiye Hargeysa. halka warkaasi duurnimo aad kala socotaan waa Radio Kulmiye iminkana akhbaaradka caalamka. aynu ku bilownay Fumio Kishida oo ahaa wasiirkii arrimaha dibadda dalka Japan ayaa ku guuleystay hoggaanka xisbiga talada dalkaas haya waxa uu noqonayaa ra'iisul wasaaraha bedelaya ra'iisul wasaaraha hadda xafiiska jooga Yoshitsuga. Fumio oo 64 sano jir ah ayaa helay ku dhawaad 300 oo cod aqlabiyadda xisbiga waxa uu isniinta soo socota la wareegayaa xilka ra'iisul wasaarenimada ee dalkaas baarlamaanka hortiisa. ra'iisul wasaarahan cusub ee dalka Japan ayaa ahaa wasiirkii arrimaha dibadda Japan intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2017. ugu dambeyntiina inta la xaqiijiyay 24 ruux ayaa ku geeriyootay weerar rabshado wata oo ka dhacay xabsi ku yaala dalka Ecuador oo kamid ah wadamada Latin America. warbaahinta dawladda ayaa baahisay in maxaabiis ku xirnaa xabsi ku yaala gobolka Guyawas ay dhaxdooda dagaalameen kadibna ay keentay dhimashada 24 maxbuus iyo dhaawac tiro kale oo aad u badan. warku waxa ay sheegayaan in dhacdadaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 40 maxbuus oo kale. gudoomiyaha gobolka oo xabsigaasi ku yaalo oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in maxaabiis dambiye kala duwan loo haysto ay hub heleen kadibna ay laba kooxood u kala baxeen dhexdoodana ay dagaalameen. telefishinka dawladda ayaa laga daawanayay muuqaalka maxaabiistaasi oo israsaaseynaya xabsiga dhexdiisa kadibna ay ciidamada dawladda xoog ku galayaan.